bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan qaadan doonaa hadduu alla idmaa casharkeena labaad ee trigonometriga maadada xisaabta ah fasalka 8aad haddaba casharkeena labaad ee trigonometry muxuu ku saabsan doonaa insha Allah taala koow waxaan baran doonaa basic trigonometric ratios labana waxaan arki doonaa trigonometric sides of triangles ayaan arki doonaa labadaas waa maxay waa basic trigonometric ratios oo ah tangent sine iyo cosine iyo sides of right angle triangles iyo dhinacyada waa maxay right angle triangle ama saddex xagal quman marka kadib on casharka anaga qaadanana waxaan insha Allah taala isu dari doonaa exercise ama laylis marka casharka dhameeyna ardayga waxa laga rabaa inuu koow waa maxay solve gareeyo ama xaliya simple problems related to sides of right angle triangle inuu xaliyo problems ka la xiriira sides of right angle triangle sidoo kale tan waxa looga baahan yahay qodobka labaad oo looga baahan yahay waa maxay waa feel the essentiality of trigonometry inuu dareemo faa'iidada ay leedahay trigonometry haddaba marka aan bilaawno trigonometric ratios ka aan fiirinay waa maxay trigonometric ratios ka saan soo sheegnay waa maxay waa saddex waa sine cos iyo tan casharkeeni hore oo koowaadna waan ku sheegnay triangle ka oo kale haddaad haysato waa maxay waxay haysato triangle ka waxay leedahay side la yiraahdo adjacent opposite iyo hypotenuse intaas dhan anagoo ka tixraacayna waa maxay angle kana la siiyay oo la yiraahdo reference angle ka oo ah b markaad joogto waxaad haystaa saddexda dhinac marka kadib baa waxaad soo saari kartaa saddexda ratio oo kala ah sine iyo cos iyo tangent okay sine b maxaad ku heli kartaa baan dhahnay waxa lagu helayaa opposite ka dhinaca la ah reference ka oo loo qaybiyay hypotenuse ka dhinaca hypotenuse kana waa dhinaca janjeerka dheer baan dhahnay sidoo kale hadana cos b waxaad ku heli kartaa adjacent oo loo qaybiyay hypotenuse tan b na waxaad ku heli kartaa opposite ka dhanka loo qaybiyay dhanka adjacent-ga waxaan u soo gaabin karnaa saddexdoodaba soo ka iyo to haddaba aan bilowni marka qaybta labaad oo casharkeena ah solving sides of right angle triangles okay steps ka aan mari lahayn markaan xalinayna sides of right angle triangle marka koowaad waa maxay choose the appropriate trigonometric ratios waa inaan dooranaa waa maxay ratio ku haboon ma tan baa ku haboon ma cos baa ku haboon ma sine baa ku haboon first waxaad la soo baxaysaa ratio qodobka labaad waxaad sameynaysaa create an equation markaad ratio-gaaga la soo baxdayba waxaad abuuraysaa isla eg ama equation baad sameynaysaa marka kadib qaybta afraad waxaad sameynaysaa markaad ratio-ga la soo baxdo oo equation samaysto marka kadib qodobka saddexaad waxaad sameynaysaa inaad unknown side ka aad raadiso dhinaca aan la garanin oo lagu diray haddaba example kan oo kale tahay example baad xagga ku haystaa example ka koowaad waxa lagu yiri given the triangle ABC haddii lagu sii triangle yiraahdo ABC find the side AB dhinaca AB dhinaca question marka baan raadinaynaa inaan soo saarnaa dhinaca si aad u soo saarto steps ka noo banaan waan garanaynaa waxa noo banaan inaan ratio doorano kadib aan equation abuurno marka kadibna aan unknown side ka soo saarno haddaba aan bilowno triangle ka baa lagu siiyay example ka koowaad waxa lagu siiyay triangle ka baa lagu siiyay right angle ka oo la yiraahdo triangle A B C then waxaad haysataa reference angle oo ah 30 degrees waxaa kaloo haystaa also side oo ah question mark ku saaran tahay iyo waxaa kaloo haystaa side ah 2 cm bracket-na maxaa noogu jira korka kore eeg maxaa bracket ku jira bracket-ka waxaa ku jira sin of 30 degrees oo la mid ah baa lagu yiri a half taas aad bay muhiim noogu tahay marka aan imaana triangle kanaga aan haysano triangle kan aad haysto marka si aad u xaliso dhinaca lagu diray side AB side ko equation mark lagu saaray waxa la rabaa inaan doorano trigonometric ratio si aad trigonometric ratio u doorato labada dhinacood haystaad fiirin side equation iyo side ka kale to lagu sii marka labadaas hesho marka kadib labada side horta anagoo reference angle keena ka tixraacayna waa maxay waa opposite iyo hypotenuse
opposite iyo hypotenuse haddaad haysta ratio-ga isticmaali kartaa waa inaad soo xasuusto ratio-ga ugu habboon oo isticmaali karna markaan waa maxay waxay noqonaysaa sin sidoo kale haddana si ka fudutaa waa maxay waxaad fiirinaysaa angle-ka lagu siiyo ratio-ga lagu siiyo angle-kana la siiyo 30 degrees ka ratio-gana lagu siiyo waa sin sida awgeed waxaan straight u isticmaali kartaa sin marka haddaba aan isxasuusinay marka sin b maxaa lagu heli jiray sin b waxaa lagu helay opposite oo loo qaybiyay hypotenuse waxaan isticmaalnay soh oo ah sin wuxuu la mid yahay opposite loo qaybiyay hypotenuse boski sin b reference angle kanaga waa maxay waa 30 degrees marka b ma isticmaalina marka waxaan leenahay sin of 30 degrees wuxuu la mid yahay opposite boska aan opposite soo celineen waxaan soo celinaa dhanka opposite ma haysana waa dhinacana la weydiiyay wuxuu noqonayaa marka side-ka side AB just AB ayaad meesha u soo qaadanaysaa divided by hypotenuse waa meeqa waa 2 cm marka 2 cm haddaba marka si aan u soo saarna AB waxaan sameynaynaa marka koowaad sin 30 waa naqaana qiimaheeda aan gashan sin 30 qiimaheeda waxaana la siiyay a half wuxuu la mid yahay AB divided by 2 cm marka si aan AP u helna waxaa sameeysaa multiply both sides by 2 cm xagaana 2 cm ku dhufo xagaana 2 cm ku dhufo marka inta 2 cm baan ku dhufanay intana 2 cm baan ku dhufanaysa marka 2 cm iyo 2 cm way isla baxayaan waxa halkaas ku soo haray AB halka maxaa noogu soo haray AB oo la mid ah intana waxa isku dhacaya 2 cm iyo half inta 2 qayb waa 1 intana 2 qayb waa 1 cm 1 cm times 1 waa just 1 cm marka side AB waxay la mid tahay waa maxay 1 cm side-kina la weydiiyay hadeer maxaan soo saarnay inuu yahay 1 cm saas baan ku xalinay example-ka koowaad example-ka labaad aan u gudubnay marka example-ka labaad waxa lagu yiri lagu siiyay given the triangle BQR triangle-ka lagu siiyay BQR then waxa lagu weydiiyay find the side QR waxaan raadinaynaa markaan dhinaca la yiraahdo QR haddaba si aad QR u soo saarto marka koowaad aan triangle-ka naga sawirana la siiyay triangle-ka la siiyay baan sawiranaynaa this is example 2 triangle-ka baa lagu siiyay marka triangle-ka markii la siiyay oo la yiraahdo PQR ayaa lagu siiyay and then waxaad haystaa side oo ah 5 cm side-kana question mark way maxaa kale waa inaad fiiriso ratio-ga bracket-ka lagu siiyay sidoo kale waa inaad taqaan and ratio-ga bracket-ka lagu siiyay waa our reference angle-ka ratio-giisa waayahay and waxaan haysanaa marka hadeer side PQ oo ah 5 cm side QR oo ah question mark oo la weydiiyay iyo reference angle oo ah 45 degrees then reference angle-ka ratio-guna lagu siiyay waa ratio-ga waa maxay waa tan of 45 degrees wuxuu la mid yahay baan Allah 1 taasna waa inaan niyada ku haysto saddexdan baa ku anfacaysa hadaad intaan isku haysto waa maxay example-kaas si fiican baan u xalin karnaa aan ka bilowna marka ratio-ga aan dooran lahayn baa la iska rabaa marka si aan u xalino example-kan ratio-ga anagi waa maxay nagu haboon waa inaan fiirino dhinacyada aan haysano sides-ka aan haysano waa opposite our reference angle-ka anagu isticmaalayna waa opposite iyo adjacent haddaad haysato waa maxay ratio-ga marka opposite iyo adjacent xiriir la leh waa toa waa tan oo la mid ah opposite loo qaybiyo adjacent sidoo kalena xagga fiiri ratio-ga lagugu siiyay angle-kaaga just ratio-ga lagugu siiyay waa tan marka straight waxaad u isticmaali kartaa tan of 45 degrees ba lagugu siiyay not example-ka aan marka koowaad aan formulaha aan soo qaadanay waa tan B wuxuu la mid yahay opposite oo loo qaybiyay hypotenuse bedelkii aan B qaadan lahayn reference angle maxaana loo siiyay halkan reference angle-ka aan haysano waa 45 degrees marka waxa leedahay tan 45 degrees wuxuu la mid yahay opposite
oo angle kanaga iyo opposite waxa la side of 5 cm 5 cm divided by hypotenuse divided by halkan waxyaraan ku laaban example ka sorry tan waxa lagu helaa baan dhahnay tan b waxa lagu helaa opposite divided by adjacent adjacent not hypotenuse okay tan b wuxuu la mid yahay opposite loo qaybiyay adjacent tan 45 marka tan 45 b bedelkeeda waxa haysanaa 45 degrees tan 45 degrees wuxuu la mid yahay opposite oo ah 5 cm divided by adjacent waa maxay waa qr ma haysan we don't know okay marka halkan aad joogto equation ka aad sameysay waxaan rabnaa markan tan 45 degrees waad haystaa inaad soo celiso ma aha tan 45 degrees xagga ku haystaa meeqoo la mid yahay waa 1 ka ayaad soo qaadanay 1 wuxuu la mid yahay waa maxay 5 cm divided by qr okay waxaad haystaa marka hadda inta si aad marka u hesho qr marka koowaad qr labada dhinac ku dhuf qr baan labada dhinac ku dhufanaa xaggaana qr baan ku dhufanayna sidoo kale intani qr ku dhuf qr iyo qr way isla bixin xagga waxa ku soo hartay 5 cm qr times 1 waa maxay waa 1 qr ama just qr equals xaggaana waxa kugu soo haray 5 cm which means side kana la weydiiyay waa qr example 2 na already sidaas baan ku xalinay example keena saddexaad baan u gudbaynaa marka hadda example keena saddexaad given the triangle KLM waxa lagu siiyay markaan triangle yiraahdo KLM triangle KLM then triangle kaasna waa right angle triangle then waxa lagu siiyay haystaa reference angle waxa lagu siiyay 60 degrees sidoo kale sides ka lagu siiyay waa LM oo ah 4 cm then question mark waxa lagu saaray angle KM and side KM oo side ka lagu weydiiyay sidoo kale waxa ratio bracket lagu siiyay waa maxay ratio lagu siiyay waa cos 60 degrees oo la mid ah a half value intaas baan haysanaa marka intaas haysana waa maxay waxaan soo saareynaa ratio-ga isticmaaleen si aan u xalina problemkan ratio-ga lagu siiyay angle-ka reference angle-ka ratio-ga lagu siiyay ratio cos marka qaacidada cos ama ratio cos isticmaal straight cos of b waxa lagu heli jiray waa inaad taqaan cos b waxa lagu heli jiray kah bad isticmaalaysaa kah oo ah cos wuxuu la mid yahay adjacent loo qaybiyay hypotenuse cos wuxuu la mid yahay adjacent loo qaybiyay hypotenuse waayahay bedelka cos b dileed waxa soo qaadanaysaa b qiimaheeda waa 60 degrees cos 60 degrees wuxuu la mid yahay adjacent qiimihiisa ma haysta waa kan waa 4 cm adjacent oo ah 4 cm divided by hypotenuse or question mark km marka halkan joogto maxaa sameynaysaa cos 60 ma soo celinaysid waxaad haystaa already cos 60 qiimihiisa oo ah a half marka cos 60 booskeeda waxaan soo celinayaa a half oo la mid ah 4 cm divided by km marka stepka ku xiga waa maxay waxaan ku dhufanaa labada dhinac km intana km baan ku dhufan intana km halka km iyo km baa isla bax inta a half times km na waa maxay waa km divided by 2 oo la mid ah xagga waxa ku soo haray 4 cm hadaba km kaligiisa dhinaca ugu soo reebto waa maxay multiply both sides by 2 baa intana ku dhufan intana ku dhufanaysa marka 2 xagga ku dhufo intana 2 ku dhufo 2 iyo 2 cm waa isla baxeen 2 cm 2 cm waxa ku soo haray km oo la mid ah
4 centimeter times 2 waa maxay waa 8 centimeters haddaba example kana sidaas baan ku xalin ratio-gii baan dooranay marka kadib equation-kii aan sameynay ugu dambeynna waxaan xalinay angle side-ka unknown-ka oo ah km example-kana sidaas baan ku dhameyn haddaba ugu dambeyn exercise baa lagu siiyey oo ah question 1 haddaba markaa exercise-ka sameynayso waxaad ka taxadaraysaa ratio-ga aad haysato ratio-ga lagu siiyey waa max angle-ka lagu siiyey ratio noocee lagu siiyey hadda case-kan oo kaleeto cos baa lagu siiyey cos waxaad u isticmaal lahayd ba ada yaqaan markaa just example-ka aan sameynay ka soo tixraac si fiican ugu laabo sidoo kale exercise kala jiro labaad kaana waxa lagu sii ratio-ga fiiri marka kadib inaad xalin karto side-ka lagu weydiiyo isku day intaas baan ku joojinaynaa casharkeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.